أما قبائل كلام ماشي دجنابه الصومري ورحوين بس ما قورما أحمر كل يوسع ولي بنا قبصنا في التاريخ ما مدعين بأحمر كل ينا لا دجالمه تاريخ الدير الأولى أنا هي لا دجالن كأساليبية في شرق أفريقيا ولي قد مدعين قال كل ينا لا دجالمه لا عهد البرتقيس ولا عهد الشيخ أحمد قري الشيخ إبراهيم الأشول ولا عهد السيد محمد عبد الله السيد المجاهد الكبير إلى يومنا هذا ولقد في التاريخ مدع قال كينا الله تقال ورحكت كورك ورسنتي حجرها معها وأنا وقتي بلس عني واقع منا أنقرني مركز المكة اعتماد أفقو ين هكوسين وقت أفقو يسوق دمي حمر بيتمد طيب المساجد بيكون حارتي أو كتابك بيصحى كترتي أو قبله بيكون فصتي طيب مركب ما حد جاوبت حقيقة عرضي هذا قرر ويدي شيء باش هو عرض قرر يسابق لته فيشتبه ترك الفساد لخشية الله بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة يا هذا ما يشوف ما له ودمان شيء وانا مريض فيشتبه حاسوء كان بمسكوت درمي وسكوت قدمن ترك الفساد فسادك ولا قتقو وحن ولا قتقو ظلمك ولا قتقو دلك يدع ولا قتقو اذا بدردي يزيد ولا قتقو توغنimada iyo muxuu boobka la iska daayay bilqada li khashyati allah ilahi cabsidan oo qatagto waxay ku darman bitarki ma yu'maru bihi min al-jihad wa an-nafaqa jihadka allah waajib yeelay inaad ka tagto ya waxaad ka dhig inaad fidna ka carriso ترك الفساد لخشية الله باتكو شبيه أما وإيه كان با ترك الجهاد لخشية الله الجهاد بالحقوقة ليس لخشية الله كأنك تترك الفساد لخشية الله شيخ عدم الدوائي وأنك نتعبرها والجهاد هو خير التوحيد الديني إماموي وإسلام كما يشوف كل إسناوي ذروة صنام الإسلام وي مركز أصيب حقوقة يساء خوفا من الفساد طيب iyo wanafaq warwabixi baa lagu dhihi maya shilan meesha ku bixin maayo fidna weeye ma caddo waxa lagu dagaalamayo shilankan waa inaan meelan hobsado war bakhaylnima ku haysa jihaadku jihaad saafi oo xalaal dhashay weeye bakhaylnima ku haysa tiibaad shaad u gelin shaar ah al wara atawarru in la fiirsado tawaquf tabayun wa hubsasho طيب wixii waa in la suubiyo ma ogtahay waa ila naasnaasho oo wixii rinjiga la mariyo guri sakaraad oo dildilaac hadii xogo intii nuurad lagu dhufto la xaalo soo gal lagu furo maalmo kadib dildilaacahay rinji ismarin badan baa taalo wax baadil ba rinji lagu marin lagu dhufanayo markaas ku dhalaalahaya bulukaati iyo muxuu ahaay macdan ba biyo dahab lagu marin iyo biyo muxuu ahaay fido dahab baad u gadan maalmo kadib iska cadaan oo dilaacahay ibirkiiba hool ma hayaaba islaantu suuqi kula ordo waa isirtan lacagteeda keena meeqa la sir hayaad rinji sumarinta marka way badan tahay jubnan fulaynimo u diido inuu jahaado ama wax bixiyo iyo waa bukhlan tan nafaqada u celi jubnan jihadka u celi taas way waxa jihadka u diido waa fulaynimo waxaad xoolaha u bixin laday waa bakhaylnimo kaama ahayna wuxuu cadayn نو صومرن بويل الصومالية مبدأ دين كده قال ما أنا أرك بقى شيخ بعد هنا عبد الله حسن هل قام في عنه حوق بينه قال لسكجر دعي يتوق يمرتدين لسكجر شقي أو الصومالي كم يدودوا ما أنا أرك بقى قبل هذه الأيام شيخ أنت وهابية ما أنا أرك نيبا ويلكي إساق أما قد بيرسي يمحوها يكي هوية يكي دارود يكي رحوين يكي barawaaniga iyo kii muxuu ahay shaanshida aha iyo mid Filibiino in yar iyo mid Mareykan iyo mid Hindiya iyo mid Pakistan iyo mid Rwandese oo madow iyo mid Ugandese iyo mid Soomaali oo Kenyaata ah oo saf ka wada dagaalamo walaalo cadka hilibka kala goosan rootina kala jabsada nagu horeysay ma nan arag basha waxna soo maray maahay ajaanib iyo muwaadiniin baan naqaanay kala qaxan naqaanay reehbal weey qabaa'ilka daro hantida ay ku lahaayeen koonfur xagee ku dambeysay way ka qaxeen markay qaxeen daaro la saaray UAC baa isku soo noqotay ayagii baa isqaxiyay oo qoys kasta hadduu ka dhistay meel uu degaan ahaan u lahayn oo guriga ka dhistay uu ka qaxay abgaal meesha sanadeen wax ka dhisteen waa laga qaxiyay xawaala waa laga qaxiyay murasada waa laga qaxiyay
goobafkii baa lagu ka urursaday nin walba godkiisiiba dib u galay nafsa shay wey bilmunaasaba kenya way foolanaysaa hadda ka horna mar baan idinku idhi waagii doorashadana waa idiin sheegay waddankan waa la kacshay shacabkii deganaa ee iska bugsadada ahaa cadaawad baa lagu beeray ajnabi nacayb iyo qaxooti la dirir iyo soorogoys la dirir iyo islaan nacayb baa laga buuxiyey maraykan iyo etoobiya iyo gaalaha qasaysa iyo kanaa'is waxa hanti aad leedihiin gobollaha muslimiintu ay degta gashada bambaasiya gaarisiya midheera iyo wajiir dhulka ay soomaalidu degta iyo muxuu ahaay ii sheeg siyeelow iyo dhulka ay soomaalidu degto ama muslimiintu u badan yihiin ay ayagu gaaladu aqaliye ku tahay wixii maala hanti agashada meelaha hadda aad joogtaan nin ganacsi yar u yimid oo xafiis uga furan yahay mooye yaan la isku hadlayn waddankan waa ruuxanaya waa la qasaya sidana kusii jiri maayo gaalana amniga yaraa ay kenya ku noolayd diidan iyo muslimiinta nabadda ku nool iyo ganacsiga ka socda iyo islaamkan soo tarmahaya kubcaya socda baa la diidan yahay gaalaa waxaan qasaysa afrikaankii meeshan degaana iska garan waaye xaali wuxuu noqona allah garan haya hantidii idinku aad lahaydeen aad waddankiina gashateen baad markaas baabi'iseen hee baad kala dhacdeen oo ka kala qaxdeen nin cadow ah oo diini aysan kuu qabanaynin oon dhaqan isku dhaqan ahayn inaad hadda sii dhex gasho ood hawdkiisiiba sii degto ood sii fogaato soo kama darro waxay ila tahay inaad is ururisaan intay goortahay inaad is ururisaan hantidiinna iyo maalkiinna wixii aad waddan islaami iyo waddan kaloo carabeed geysanaysaanna geysataan wixii aan carab lala aadaynin islaamkana aad waddankiina ku ceshataan haddii la awoodi waayo gobollaha aad u badan tihiin muslimiintu ay leeyihiin gashada laakiin qaabkaad u dhaqmaysaa sidii idinku waddanka qabsaday aad socotaan aad yaacaysaan meel kastaba buush ka taagaysaan inay sidaan wax ku socon fili maayo waaya inaad leedihiin in kale way caddaan doonta ayib meel aan gurmad kaaga imanaynin oo xataa baabuur aad ku carartay meel isku gaadhsiinayn waa halis wey haddii hadda gaaris laga qaxo ama bambaasa laga qaxo soomaaliya qarkaada orod baad ku geli kartaa hawdkaas intaad dhex qaadad ama adaaba seere xidhanayo lagu soo geli karab adaaba ka awood badan annaga dawladdu maa naga adaga shacab waddan lama geeni karo afrikaan oo dhan iska daayay yurub oo dhan baan samaynaynaa iyo gaal oo dhan waa samayn karnaa waa la ogyahay warka waa la yaqaanaa buundada oo xidhataa kugu filantaa tartiib idinku iscuna waxaa tusaale kugu filan waagan iyagoo isku dhaceed jalwo iyo kukuye maxaa kala gaadhay maxay isku sameeyeen ninku kuya wuxuu awoodi waayey meelay jalwo degaan leh inuu mara xataa kamaandhaha laga baadhay magaciisa la garan inuu jalwoya ama kukuye waa la gowracaya bangad ba lagu dilahaya kii jalwaha sidoo kale loo galay idinka marka oo soomaali oo maxamed iyo cali iyo cusmaan iyo cali idin qoran yahay oo wada san dhuuban indhaha taagahay iyo waxaad doonaysaan nimanka iyagu iscunaysiya bahalkii inaad ku dhex faaftaan oo aad maal gashataan hawdadkoodii iyo tuulooyinkoodii aniga waxay ila tahay hawsha inaan laga fiirsanin ganacsigii adduunyadu marar badan bay ku indho tirtaa oo cawaaqibta soo socota aadan qiyaasi karin oo shilinku kuu muuqanaya adduunyadu oo aysan kuu muuqayna maslaxadda ummadda iyo waxa uu noqon doonayo adduunka qaabka u shaqaynayo وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع خلاصة كوبان وي شيخ وحوري